dhammaan madaxda halkan joogta kulligood si aan waqtiga u soo koobno gobolka banaadir iyo xukuumadda odayaasha dhalinyarada haweenka culimmada saxaafadda iyo cid walba marka ugu horeysa shacabkii Soomaaliyeed ee xafladan soo agaasimay oo codsaday inay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyaan magacaabistii gudoomiyaha anigoo ka wakiila waxaan leeyahay mahad celintii waa idinka gudoonay kulligeed waxaan leeyahay haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa oo gudoomiye Cumar iyo aniga iyo gudoomiyaasha Cumar la shaqeeyay shaqaalaha gobolka banaadir iyo wasiirada halkan fadhiyay cid walba oo dalka xil u haysa haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa waxaa ka bixiyay ilaahay ha barakeeye Cabdi Cali Bacalwaan maalintii uu codkaas duubay iyo maanta taariikhdu isku sibay mudan tahay wuxuu noo sheegay inaanan dalkan annagu milkiilayaalka ahayn oo aan mas-uuliyiin ka nahay wuxuu noo sheegay inaan shacabka u adeegno wuxuu noo sheegay inaan xoolahooda lagu tagrifalin wuxuu noo sheegay in marka ugu dambaysa qof walba laga xisaabtami doono waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay gudoomiye in taladii uu noo soo jeediyey kulligan aniga iyo adiga iyo madaxweynaha iyo inta aan hogaaminaba inaan qaadan doono haddii ilaa yidhaahdo intaas waxaan raaci lahaa waxaa halkan ka muuqda in gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho si xoog leh u taageersan tahay waxaa halkan ka muuqda in magacaabistiisuna ay sax ahayd laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo haddii aad rabtaan inaad xafladaysaan markii la xafladeeyana keligiis shaqada looga tago intaas kuma filne intaas wax ma ku daraysaan waxaan soo jeedi lahaa inaad guddoomiyaha garab istaagtaan si loo hubiyo dowladnimadii laga soo bilaabay 1960kii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan ah magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Soomaaliyeed aan kulligeenu wada ilaashano waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idin kala shaqeeyo amniga magaalada waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminay inuu ilaaliyo dowladnimada iftiinka magaaladan ka ah su-aashu waxay tahay marka ma la shaqaynaysaan mase waa la xafladaynaysaan ma la shaqaynaysaan ma garab istaagaysaan mise waa la xafladaynaysaan waxaa lagu aaminay guddoomiye Cumar inuu ilaaliyo qarannimada ka dhisan magaaladan inuu isu keeno dadka inuu xuquuqdooda ilaaliyo waxaa lagu aaminay inuu ahaado mas-uul laakiin xukunka looguma dhiibin inuu milkiile ahaado waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran in dalkiina deynta laga cafiyo waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed la soo celiyay waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan u sii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natusiyey
ku dhowaad 30 sano in dowladda Soomaaliyeed ee magaalada Washington ka iibsatay safaarad iyadoo ay leedahay ay ku shaqayso. waxaan leeyahay garab istaaga sababtoo ah dadka magaaladan degan maalintay magaalo madax noqotay ilaa hadda ayagaa lagu yaqaanay inay isku hayaan shacabka Soomaaliyeed, iyagaa lagu yaqaanay inay qarannimada ilaashadaan, iyagaa lagu yaqaanay inay dowladnimada dhiirigeliyaan. waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla, waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla, waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed oo halkani oo ay aasaas u tahay, waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah Soomaaliya oo dhan baa iska leh isagaana mas-uulka ah. sidaas daraaddeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aad ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna, annaguna waxaan kala shaqaynaynaa codsi walba uu noo keensado. la shaqaynta guddoomiyaha macnaheedu waxa ay tahay in lagula shaqeeyo wanaagga, in lagula shaqeeyo sidoo kale cid walba oo isku dayaysa inay wiiqdo dowladnimada inuu hor istaago. Soomaaliya iftiin baa u muuqda, rajaa u muuqata, laakiin jid culus bay maraysaa. dadku ma wada fahmi karaan. inta fahmaysa jidkaas culusoo la maraayo oo aan ogahay inuu nagu ridayo meesha dhowri doonta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, intaas oo ay aasaas u yihiin dadkii xafladdan soo abaabulay, waxaan leeyahay garab istaaga guddoomiyaha, ilaaliya dowladnimada guddoomiye. hambaliyo 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 hambaliyo.